السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإسلام جايس بيتنا يجون لك عداون السوا إبرك الدرب ما أنت إبرك الدرب مجرت والشيخ إبراهيم كل عاوز أجي دندوك يعيدون كل تعرف لك أنا وصار كتير الموضوع ما أنت وكدوية موضوع إذا أن ولقي أنت مقال سمينا like I mean أنت يوتيوب كجر وح سمينا وكدوية مقال كان ساعدوا هي تهاي طبعا كهبينما يولواتن إيشان أم سأود خاند أفر ساعة بينما يلاتيشان سأود خاند بو so waxa maanta muuqaalka sameynaa wax kale ma ahan waxa soo aaday ama waxa soo raacay tabliiq inta badan dadkiina waa yaqaanaan inta badanna ma yaqaanin laakiin muuqaalkan uu ku ogaanaysiin soo kale nolosha tabliiq waxa rabaa inaan muuqaalka idinku soo gudbiyo ee dalka Malaysia inta joogo dalka Malaysia waa 4 sano 4 sanana wali maana raacin tabliiq ama meel ay degaan ma arkin laakiin maanta waxaan si u yeestay inaan soo raaco aan ka mid noqdo dadka xaggaas kubaxay khuruujka waan ku faraxsanahay inaan noqdo sidoo kale waan ku faraxsanahay inuu Ilaahay ii dooro inaan soo baxo ee nolosheeda mishaad ka bilaabato maalintaas ee ku dhamaato mishaad wax fudud maahan subaxiisa u imaado meesha habeenkii meesha aseexanaysid noloshaada dhan ay ku xirnaanayso mishaadka shanta salaad mishaad ku dukanaysid cibaadadaada quraankaaga salaadaada wax dhan ay noqonayso comfortable alxamdulillah kulli ani iskama imaanin doorasho Ilaahay ku imaaday waan ku faraxsanahay soo saacadu waxay tahay hadda sawarada ku sheego waa xilli habeen waxaa muuqaalka bilaabay xilli habeen waxaan go'aansaday inaan soo gudbiyo marka hore qorsheyga ma inaan muuqaal sameeyo laakiin marka arkay nolosha sida ay tahay waxaa jeclaystay inaan soo gudbiyo oo idinku dhiirigeliyo hal maalin ha noqoto xataa inaad soo tijaabisaan meesha nimcada taalo ama faa'iido u weyn taalo inteena badan dhalinyaraan ahnay waa isnaqaanaa nolosheena ma hagaagsano ma toosno waa iska bodboodnaa waa iska baashaanaa laakiin dhankan diinta markaad doontid ama markaa fahantid diinta waxay tahay ama markaa fahantid salaadaha faa'iido leeyihiin oo kale mishaad ku dukanaysid naxariista mishaadka taalo inaba caadi maahan iyo waran isku gudaanin muuqaalkeena maanta xaggaan ku bilaaban doonaa insha Allah 3 maalin xaggaan joogi doonaa wax kasta oo ma aan sameynaa maalinteeda hal maalin ay soo duubi doonaa kaliya maalmaha kalena day hooshida kala ku jira ogaawna waxa laga yaabaa in muuqaalada waqti u heli waayo sababtoo ah waqtiyaasha ugu badan عمال الهايا أو هول الهايا أو مشاهد كل وجرا وحلا قرنايا سو إن شاء الله هذا الكل يكون بدينايو سلعاوي كبلاونا إنسان سو نسعد ونكسن أوكي وحلاقيها بين سويدين يسدسوكها لجماعة تبليغ قفكي كدم بشخصي كدم بيورتي أنا صابح تبليغ صارعه ولا لك ساعد وودا وحارة أنا تبليغ هذا روح أنا أني ودي أي سكراعة ما شاء الله سيبنا كفر حي ساعد سوري ورت أصحابتي زلان ودوا هي ولا إبراهيم أصحابتي أنا والسلام يا أدي نحاول مشان عبادة الله إماضي سفعة نحاول كل يرجعنا إنا والإماتين مشان سفعة دليرتا والسود أوجه والتو كذا لكن مشان مركا إماتين waxyaabo badan ku kordhayo of course iimaankaaga jiis noqonaa experience badan helaysaa waxaadan aqoon oo hore u arkin oo ka qarsanaa ayaa baranaysaa dad kala nooc oo ajaaniba baranaysaa marka waxa waa hada soo tijaabiyaa leeyahay I hope adigina ma sha Allah inuu Ilaahay ajir ka siiyo kulli imaasha imaado lagu weynaan kullada saaxiib ma sanada kulli infaan ma waxa soo isku leeyahay aad iyo aad salaam waxaad aragtaan inuu masaajidka maran yahay aysan qofna joogin soo waxa la taagan yahay xilligii hurdada ama jiifka sida saxa jamaacada waxay jiifataa ama waxay hurdaysaa waa qaybta kore soo marka aniga waxaan isku diyaarinaa xilligii hurdada insha Allah waxaynu balan subaxii because waxaan ka bilaabay muuqaalka xilli habeen waxay igu soo dhacday inaan la wadaago noloshii ku nool yihiin tabliiqa soo insha Allah haddana waxaan ku sameyn doonaa gudaha ku xarado iska seexdo insha Allah bari aynu balan بمدرساتهم تضحى السعد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا كتاب ربي تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا بمدرسات
خولة صحبي بكم ساعد. soo waxaa soo aragteen ba anagu hurdadii kasoo kacan alxamdulilah weliba xilli hore iyadoo tahay kadibna way is qaadanay maasha allah bishaadka kusoo xaroonay si aan u tukano salaad subax soo waxaa sida saxda la sameeyaa salaad subax walba kadib in la akhriyo ama la soo jeediyo bayaan ama wacdi saa u taqaaniinbo ugu yaraan 30 daqiiqo ah. خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربي كان لقيانا من أجل آيات. soo jeedaan xilligan waa xilli subax maasha allah aroor hore ee qoraxdu soo baxday waa 2 saac iyo bar ama 8 iyo bar saa u taqaaniin waxaa sugeynaa waa quraacdii maasha allah oo banaanka masaajidkiisa fadhinaa laakiin masaajidka ma ka baxsano waa meel xiran marka alxamdulilah soo waa quraacan doonaa meesha kala sii socdo maasha allah. alxamdulilah caafimaad oo kusoo cunteynay oo kusoo quraacnay soo weli waxaan ku guda jirnaa waa maalinteenii tabliiqa ama nolosha tabliiqa maalinteeda waa sidee kulley alxamdulilah waxaa dareemaya ku dhahay inaad shakhsi cusub tahay fahanto qof cusub inaad tahay sababtoo ah saa hore kugu sheegay maalinta dhan waxay noqonaysaa maalin cibaado maasha allah oo 24 saacadood waxay kugu bilaabanaysaa masaajid waxayna kugu dhamaanaysaa masaajid hadda almost waa soo cunteena alxamdulilah saaka waa inta jadwalka xilliga soo kacanay waxyaabaha la sameynayo so insha allah waxaan isku dayi doonaa inkastoo aan la ogolayn in telefoon la isticmaalo sababtoo ah way ku mashquulinayaan fahanto baad hadda internet haysatid ku mashquulinaa insha allah waxaan isku dayi doonaa marka waxyaabaha aan ka gaaro inaan idin soo gudbiyo iyo amaalaadka la sameynayo iyo howlaha la sameynayo socod wanaagsan. quraacda kadib waxaa leedahay berigeer aad ku nasan kartid adiga ku indhaguudsan kartid marka aan waxaan isku diyaarinaya markaa inaan indhaguudsado isla socod wanaagsan. walaa ana caabidun ma caabadtum walaa antum caabiduun ma acbud. qaybtaan u jeediin maasha allah waa qayb aad ugu helay waayo markii lasoo nasto kadib oo nasiinada laga soo baxay qof walba yar soo indhaguudsaday waxaa dhacays in la sameeyo in afar ama 3 loo fadhiisto handan maasha allah alamtar laga soo bilaabo quraanka ilaa faatixada qof walba oo suurad akhriyo marka maasha allah waa adiga noloshaada waxay noqonaysaa mid ku saleysan cibaado quraan akhris adkaartaada salaadaada maasha allah. wax kale aan aad kugu helo waxaa kamid ahayd dadkana u jeedaan maasha allah waxaa ku jiro waa professoro waa doctor waaweyn maasha allah oo weliba laga sheegay inay isbitaal waaweyn hayaan sidoo kale arday jaamacadeed maasha allah waa dad noloshooda maasha allah isku soo dayan inay iimaankooda jiideystaan maasha allah mashaadkan ku dhex jiraan ku cibaadaystaan marka anigana insha allah waa rajeynaynaa inaan ka mid noqono dadkaas insha allah. quraan akhris kadib waxaa dhacaysa maasha allah inuu ku qornayo qof inuu akhriyo kitaab axaadiis like waxaa dhacdo qof walba inuu ku qoran yahay howl gaar ah oo meesha ka qabanaya maasha allah marka halkan waxaan la akhrinayaa waa kitaab axaadiis. تفسيرا وإتقانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. qadada iyo quraacdaba inta u dhaxaysa waxaa jirta cunto yar oo la cuno marka maasha allah waqtigaasna la jooga haddana waa soo cunteynayna kadib isku soo noqonayna like geedkaas aan gacanta ku hayo haddii aad taqaanid comment kusoo qor magaciisa ayaga dhan weydiinayo like magac nooc kale ii sheegeen so haddii aad taqaanid xag commentiga noo soo qor aad u mahadsantahay. waqtigan aad arkaysaan waa salaada duhur kadib soo waxaa dhacda in bayaan yar la jeediyo maasha allah magaasha dhan waxay noqonaysaa in looga hadlo qaal allahu tacaala iyo qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam like wax ka qurux badan ma jirto in maalintaada dhan dhagahaaga ay maqlayaan labadaas kalaam marka so insha allah waxaan rajeynaa nasiib wacan inay meeshaan imaadaan oo waqtigeena ku qaadataan. haddana waxay noqotay inaan banaanka soo baxno oo aan soo doonano qadada because waxaa la joogaa waqtigii qadada waan qadinaynaa insha allah marka isla socod wanaagsan. oo qadada kadib waxaa dhacaysa maasha allah in nasiino la aado qof walbii qofkii indhaguudsan karo indhaguudsado qofkii wax akhrisan karo inuu iska akhrisado marka aniga waxyar waa indhaguudsanaa insha allah dee waxaa inoo badan salaada casir insha allah. waqtigaan arkaysaa waqtiga salaada casir kadib waxaa nasiib u yeeshtay aniga iyo 3 kaloo walaaladay ah inaan ka mid noqdo dadka joolada qaadayo oo dadka muslimiinta banaanka joogo maasha allah xasuusin yar u sameynayo marka alxamdulilah oo ku guuleystay waana raacay soo isla socod wanaagsan. xaggan markaa marsiinaya waxaa dhacday in taleefonkii oo iga damo aanan jaajar haysanin soo wax kalena intaan ka badan uma sameynayo. salaada maqrib kadib sidoo kale bayaan ayaa jiro salaada cisho kadib sidoo kale bayaan ayaa jiro marka adiga noloshaada dhan waxay noqonaysaa saa hore kugu soo sheegay nolol ka bilaabata masaajid
kuna dhamaato masaajid. sidoo kale wax aan maqlaysid dhagahaaga ama waxa qabanaysid bay noqonayaan wax ilaahay oo raali ka yahay. marka insha Allah waxaan rajeynayaa qof walba aan hore u soo tijaabin inuu soo tijaabiyo, qofkii hore u soo tijaabiyeen insha Allah inuu mar kale ku noqdo soo iimaankiisa u soo jadiidsado oo xoogsado insha Allah. aad u mahadsanid daawashada muuqaalkan. waxaan noo balanahay muuqaalka xiga waxa laga tagaa insha Allah sidaas iyo nabadgelyo.